بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناسان إذا لهانتين بداوض يال كسر وهذا ورركينا دجالا هذاك أو مالنتي لبعض كالصعدة حتى أمحارة يتكرك وبيران أفر مجاله ولا قبصة حقوق أمحارة مقالة أي بيلفت صوابا دكتور وموتين يا بربرك دجال كي شلي أي دجانا داسيكو قبصتين يوم يرى وساك جعنت وجش عيدا ماذا تكرك ورركي وجودن بي دجالا ذاك الصعدة aagaasi ayaan idinla wadaagi doonaa qodobada kale xiisaha leh ee aan idin hayna daawadayaal waxaa ka mid ah Mareykanka oo war ka soo saaray dagaalka Amxaarada iyo Tigreega ee dalkaasi Ethiopia dowladda Ethiopia oo maanta sheegtay in maxkamad ay soo taagayso saraakiishii TPLF ee ay gacanta ku haysay kuwaasi oo la qabtay muddadii uu dagaalku ka socday gobolka Waqooyiga midowga Yurub oo xanibaadaha socdaalka iyo dhanka dhaqaalaha ahba ku soo rogay dalkaasi Ethiopia iyo xaalad oo ku sii cakiran Abiy Ahmed jabhadda ka dagaalanta gobolka Oromada ee Ola oo sheegtay dagaallo ay ku galeen gobolkaasi Oromada inay ka gaareen guulo wax ku ool ah isla markaasina casharo u dhigeen ciidamada dowladda federaalka ee dalka Ethiopia intaasi waa qodobadan idin haynay kuwa ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowno dhankaas iyo gobolka Tigreega iyo Amxaarada dagaalada ka aloosane dagaal ayaa maalintii labaad ka socda xuduudda u dhaxaysa deegaanadaasi Tigreega iyo Amxaarada gaar ahaan gobolka Raaya ilo wareedda deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalku uu yahay midkii ugu cuslaa ee muddooyinkan ka dhacay deegaanadaasi ciidamada Tigreega ayaa sheegaya inay si buuxda ula wareegeen magaalooyinka Alamata, Korem, Wafre, Adeta iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysan dhammaan meelahan ayaa ah meelihii la isku farasaaray dagaalkii shalay ka dhacay aagaasi saaka subaxii horena waxaa la soo sheegay in mar kale uu dagaal ka qarxay aagaasi ciidamada Tigreega ayaana sheegaya in dagaalka ay sii wadi doonaan inta taaka ka mida dhulkooda ay ka haysato qowmiyadda Amxaaradu isla markaasina ay ka soo ceshanayaan warbaahinta ayaa saaka waxa ay sheegaysaa in dabaaldegyo ay ka socdaan magaalooyinkan shalay lagu dagaalamay ee ciidamada TPLF-tu ay la wareegeen muuqaalkan haata idiin muuqda waxa uu ka dhacay waa magaalada lagu magacaabo Korem oo maalinnimadii shalay ahayd ay la wareegeen ciidamada TPLF-tu kadib dagaal adag oo halkaasi ay isku farasaareen kuwa dowlad deegaankaasi Amxaarada shacabka Tigreega ayaa dabaaldeg ku soo dhaweeyay ciidamada TDF-ta ee sidoo kale magaalada Alamata muuqaalkan haata aan idinla wadaagaynana waa mar kale iyo magaaladaasi Alamata oo ay la wareegeen kooxaha TPLF-tu intaasi uun kuma ekaanine wararkii ugu dambeeyay ee dhankaas ka imanaya ayaa sheegaya in saaka dagaallo adag ay ka dhaceen agagaarka magaalada Humera taasi oo ugu dambeyntii saacado yar oo kooban kadib gacanta u gashay kooxaha TPLF-ta waxayna dagaaladani u dhaxeeyeen TPLF-ta iyo sidoo kale ciidamada Amxaarada oo carar un laga afgartay deegaanka Amxaarada iyo guud ahaanba waxaa loogu baaqayaa in shacabku ay u diyaar garoobaan dagaal madaxweynaha Amxaarada Agathon Tashagga ayaa durba fariin calaacala u kala diray shacabweynaha Ethiopia iyo sidoo kale Amxaarada waxa uu leeyahay madaxweyne Agathon Tashagga muwaadiniinta Ethiopiaanka iyo kuwa Amxaaradaba waxaan u sheegayaa TPLF waxay si cad ugu dhawaaqday dagaalka dhan ah shacabka Amxaarada waxaan ku jiraa halgan damiiriya sidaasi darteedna naga caawiya wixii aad awoodaan ayuu fariin calaacal ka buuxo ugu diray shacabweynaha Ethiopia dowladda dhexe dalka Ethiopia ayaa gebi ahaanba ka gaabsatay dagaalka ka socda Tigreega iyo Amxaarada welina kama ayna hadlin arrimahani haddaba Mareykanka ayaa ka hadlay arrintani waxa uuna ugu baaqay TPLF iyo Amxaaraduba inay xabajoojin degdega ay galaan isla markaasina wada hadal lagu dhameeyo inta dhiman dadaal kasta oo lagu doonayo in xoog lagu bedelo xuduudaha gudaha ee Ethiopia waa mid aan la aqbali karin arrin kasta oo muhiim ah Ethiopia sida xuduudaha waxaa muhiim ah in wada hadal lagu dhameeyo oo aan qori afki ama qori caaradii la isticmaalin
waxaana mar labaad ugu baaqaynaa ciidamada difaaca Tigreega, ciidamada gobolka Amxaarada iyo sidoo kale ciidamada militariga Ethiopia inay u dhaqaaqaan xabad joojin iyo wada hadal ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladdaasi Mareykanka ayaa sheegay in xabad joojin iyo wada hadal ay ku jirto in la ilaaliyo danta shacabka iyo midnimada guud ahaanba waxa loogu yeedho Ethiopia. dowladda dhexe Ethiopiana waxay saaka shaacisay in maxkamad ay soo taagayso saraakiishii TPLF ee gacanta ay ku haysay kuwaasi oo la qabtay intii uu dagaalku ka socday gobolkaasi waqooyiga. Ethiopia ayaa sheegtay inay la maxkamadayn doono xubno badan oo ka tirsan TPLF toddobaadkani. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Ethiopia Fakedo ninka lagu magacaabo ayaa sheegay in toddobaadkani cadaaladda la hor keeni doono 42 xubnood oo ka tirsan TPLF kuwaasi oo lagu eedeeyay inay isku dayeen burburinta waxa loogu yeedhay Ethiopia iyo jabinta dastuurka qaranka, waana sida uu hadalka u dhigay. Fakedo ayaa sheegaya in la soo gabagabeeyay baadhistii toddobaadkanina la hor keeni doono maxkamadda ragani ku eedeysan burburinta Ethiopia ee ka mid ah saraakiisha TPLF. midowga Yurubna dhankooda waxay ku dhawaaqeen inay cunaqabatayn dhaqaale iyo mid safarba ku soo rogayaan dalka Ethiopia, gaar ahaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Addis Ababa. Horey ayay tallaabadan oo kale u qaadeen Mareykanku, waxaana Ethiopia ay la daalaa-dhacaysaa dhaqaale xumo badan kadib markii ay heer galbeedku ka joojiyeen gebi ahaanba miisaaniyaddii ay siin jireen, taasi oo lagu kaabi jiray dowladda dhexe ee dalka Ethiopia. dhowaan ayay ahayd markii wasiirka maaliyadda aan idhaahdee ee dalkaasi Ethiopia Ahmed Shide uu sheegay in dalku uu u baahan yahay 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka si loogu badbaadiyo buu yidhi, isagoo xusay in dhaqaale la-aan badani ay ka jirta Ethiopia aynan haynin dhaqaalaha sanadka soo socda dalkaasi ay kusii maamuli lahaayeen. toddobaadkan midowga Yurub ayaa sheegaya in miiska ay u saaran tahay in xanibaad dhaqaale iyo mid socdaalba xukuumadda Abiy Ahmed ay ku soo rogaan, waana dhabarjabkii ugu dambeeyay ee Ethiopia ka soo food saaraya heer galbeedka. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dhanka iyo deegaanka Oromada, waxaa la sheegay in jabhadda Ola ee Oromadu ay guulo waaweyn ka gaadhay dagaalo adag oo ay la gashay ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolka Oromada. Ola ayaa sheegaysa in guulo ay ka gaadheen dagaalo ay ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda Ethiopia oo ku yaala gobolkaasi Oromada. waxay sheegeen in casharo lama ilaawaan ay ugu dhigeen dagaalo ay la galeen ciidamada Ethiopia, kuwa dowlad deegaankaasi Oromada iyo sidoo kale maleeshiyaadka deegaankaasi Oromada. jabhadani ayaa u dhaqdhaqaaqda gobolkaasi Oromada iyagoo raadinaya madax bannaani ay ka siiyaan Ethiopia inteeda kale. guud ahaanba wararkan Ethiopia idinka haynay intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa. waa guulada dhifle oo idinkaga sii tagaya. salaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.